sinka wuxuu ka mid yahay hay'adaha waxbarashada ee federaalka ee loo aasaasay in waxbarashada ka shaqeeyaan sida ogtiin dawlad goboleed kasta waxa loo sameeyay wasaaradda waxbarasho taas oo lagu talagalay in deegaankaas waxbarashada ka socota ay mas'uul ka noqoto waana awoodaha kamid ah awoodihii wasaaradda waxbarashada ee la daadajiyay ayay qayb ka noqday agaasimka waxbarashada gobolka Banaadir maadaama gobolka Banaadir oo shacabka Soomaaliyeed uu ka qaado canshuur shacabka Soomaaliyeed ay ka sugayaan canshuurtu ka qaaday in wax ugu qabto taasoo laga rabo marka waxbarashada iyo waxyaabihii kale oo bulshada ay ka sugaysay in lagu qabto marka runtii maadaama anagoo wali inuu maqaamkii gobolka Banaadir meeshii lagu talagalay gaarin haddana waxay maamulkii garawsadeen runtii aan uga mahad celinayaa uu go'aansaday gudoomiyaheena gudoomiye Cumar Finish in ayadoo saas ay jirto haddana in bulshadan canshuurtooda laga qaadayo in ay helaan xuquuqdooda waxbarasho taasoo isla garteen wasiirkii hore waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre oo runtii asna ku dhiiriday inuu daadijinta qayb ka noqdo taas darteed marka agaasinkii waxaa laga sugayay marka inuu qabto qaybihii kala duwanaa ee adeegga waxbarashada ragii saaxiibada marka iga horeeyay ayaa arrimahaas ka dhawaajiyay waxaan rabaa marka inaan sheego dhowr noqdo ah dadku waxa laga yaabaa inay isweydiiyaan imis ardayda magaalada wax ka barata magaalada Muqdisho ardayda hadda noo xareysan ee fasalka koowaad ilaa fasalka 12aad noo xareysan welina hadeertaan dhamaystirkooda aan dhameeyna sanduuqsiyeedka hadda inta ka dhiman du'aal idmo waa 292,059 arday oo gabdhaha wiilal iskugu jira ayaa si signal saaran oo 43% ay gabdha yihiin macallimiinta hadda noo diiwaan gashan ayagana aan dhamaystirna sanduuqsiyeedka hadda inta ka dhiman 3 bilood ka dhiman sanduuqsiyeedkan 2020-2021 waa 8,841 macallin ayaa noo diiwaan gashan ayagana imtixaanka hadda aan caawi qaybihi kamid ay tahay wacyigelinta aan sameynayno waa 26,591 arday ayaa fasalka 8aad imtixaan u fariisanaysa fasalka dugsiga sare ee 12aad gobolka Banaadir waxa imtixaan u fariisanaysa 27,515 arday oo arday ayaa u fariisanaysa form 4ka wadanka dhan waxa u fariisanaysa imtixaanka maxaa galmudug Hirshabeelle Southwest Jubbaland iyo gobolka Banaadir marka la isku daro 36,000 oo arday ayaa imtixaanka fariisanaysa marka 36,000 arday imtixaanka fariisanaysa gobolka Banaadir wuxuu ku leeyahay 27,000 iyo xogaa maadaama markii sanadkii hore culaysan ay dhaceen imtixaanaadkii ay ka dhaceen waxaa juhdi ku bixinay si agaasimiye imtixaanaadka uu sheegay inaan ka fakarno inaan doorkeen agaasim waxbarashada qaadano oo dhahno maxaa ka yareyn karnaa maxaa wax laga bedeli karaa arrimahaas tilaabooyin tiro badan aan soo qaadnay tilaabooyinkaas ay ka mid ahaayeen inaan la fariisanay iskuulaadka imtixaanka maxaa form 4kii 8ka ku dhacay iskuul kasta oo ardaydiisa 60% ka badan ay dhaceen waa u yeernay waa la fariisanay waa la hadalnay dukumeentiyana kala qoranay inuu sanadkan arintaas ay soo laaban haddii wax ka soo laabtaan ay wax yar noqoto waxay ka mid ahayd qayb ka mid ah inaan la xisaabtano iskuulaadkii waxaan sameynay inaan tagno iskuulaadkii kormeer ku sameeyno arday kasta ee fasalka 8aad iyo fasalka 12aad imtixaan u fariisanaya inaan dhahno hebel aaway hebelana aawo inaan dhahno taasoo ah inaan sanadkan arday bannaanka ka soo galay imtixaan aan la arkin ama la waayo ama ay timaado arday bannaanka taagan oo dhahaya waxaa la ii diiday imtixaanka inaan galo waa kormeerkii koowaad ee la sameeyo ee lagu soo ogaado arday rasmi ah fasalkii ma fadhiya arday imtixaan galaya hebel iyo hebel ma joogaan waxaan sameynay oo qabanay shirweynaha waxbarashada gobolka Banaadir ayaan bishii hore qabanay shirweynahaas waxyaabaha u qabayna waxaa ka mid ahaa inaan ku wacyigelinno baahda waxbarashada arday baan ka soo qayb gelinay
macallimiintii maamulayaashii iyo dadkii dhan ka soo qayb gelinay ardada waxaan siinay codkii ay ku hadli lahaayeen ayaan siinay waxaa nooga soo baxay walwalka iyo arrimaha imtixaanka oo ardada ku hayo ayaa waxyaabihii shirka nooga soo baxay oo ka mid ahaa markaan aragnay shirkaas ciladihii iyo ardada cabashada imtixaanka ay ka qabaan iyo cabsida ay ka qabaan waxaan sameynay oo bilownay shirka annagoo ka faa'iidaysanay qodobadii ka soo baxay wacyigelin baan bilownay wacyigelintaan bilownay ayay qayb ka tahay caaway arrinta meesha u fadhino ardada xafiiska ugu yeerno ama meelo gaara ah ardada ugu tagtid waxay kuu sheegaan dhibka hayay kuu sheegayaan sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaan ardada laftigooda soo fadhiisana baanalka muxuu ahaa tiifiyada hadduu alla idmo ay sheegaan dhibaatooyinka haysta lalana hadlo loona sheego imtixaanku inuusan ahayn ciqaab ee keliya imtixaanku yahay in lagu qiimeynayo wixii uu bartay keliya sidaa daraaddeed marka caawa arrinta aan qabanay ugu yeernay uguna marti qaadnay haldoorka dhallinyarada gobolka banaadir joogta anoo hilmaamay wasiirada jooga dowlad goboleeda muxuu ahaa inkaraal gelinayna marka hore xusin gabadha hadda sheegtay meesha wasiirka ka ahna ay sheegtay inay gobolka banaadir ay wax ku baratay sababta dadkaas isku yeernay waxay ahayd inay caawi wax ka qaadaan message-ka ah wacyigelinta imtixaanka ardada galaysa ee dhammaan wacyigelintaas oo isku koobneen gobolka banaadir isku koobneen sababta ardayga Soomaaliyeed ee meel kasta imtixaan ka galaya wuxuu u baahan yahay in niyadda loo dhiso wuxuu u baahan yahay in loo sheego imtixaanka inuu balaayo ku soo socota uu sahayn kaliya ardaygu u baahan yahay in wixii la baray uu akhriyo fahmo kuna dadaalo ka bacdina oo ilaahay ku kalsoonaado thumma uu naftiisa ku kalsoonaado intaas hadduu ardaygu sameeyo imtixaanka ku guuleysanaya arrintaas ka mid ah arrimaha aan caaway idinku yeernay sidaa darteed waxaan rajaynaynaa inaad qayb ka noqotaan dhammaantiin in ka rajaynaa aan rajaynaa qof kastaba intaasoo boqolaal kun qof ku xiran tahay wacyigelinta ardada imtixaanka galaysa ee haddeertaa magalabtay ay wasaaraddu ku dhawaaqday inay qaadaysa 29ka bisha May hadda aan ku jirno annaguna isla bishaan aan qaadayna imtixaanka sideedaadka dowlad goboleed dhammaantoodna isla waqtiyaas ay qaadi doonaan in ardada Soomaaliyeed dhammaantood gaarsiino imtixaanka inuu si ciqaab ahayn ay ku kalsoonaan wax ay barteen juhdina ku bixiyaan kuna didaalaan sidaa daraaddeed marka imtixaanka galayaan ardaygu isu kalsoona imtixaanka galo marka waa mahadsantihiin waa warkaygu intaasaan kusoo gaabinahay rabnaa caawa laba message anay qaadaysa inay noqdaan anoo maadaama ahay agaasimihii guud agaasinka waxbarashada gobolka banaadir inaan agaasinka waxbarashada gobolka banaadir ku soo dhaweynaya xaruntiina dhammaantiin jecelna inaad noo timaadaan xarunta barataan talooyinkiina aad nagu soo kordhisaan sidii gabadha qoraaga ay sheegtay iyo dhammaantiin inaad ku soo kordhisaan sababta annaga waxaan u shaqaynaa bulshada aniga shaqaala ahay waxaan shaqaala u ahay muxuu ahaa oo maamulka ii dhiibteen ardayga Soomaaliyeed iskuulka jooga ayaan shaqaala u ah marka ma aha madax qof madaxa oo iskaga dhigay ardaygii madax iskaga dhigay ardaydaasaan shaqaala u nahay sidaa daraaddeed waxaan diyaar u nahay qof kasta oo Soomaali ah fikradda uu noo keeno